Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaari kusoo dhawaada maanta maxaa cusub arrimaha Bollywoodka maanta waxaan kusoo qaadanay 2 July Ranveer Singh iyo Deepika Padukone lamaanayaashan ayaa muddadii dambe waxaa laga dareemayay colaad inay dhex taalo tiriishadan caanka ah inta badan Bollywoodka taageero fara badan ku leh Bollywoodka ayaa inta badan waxaa laga dareemayay inay iska ilaalinaysay Ranveer Singh markay isku raacaan xafladaha ayay diideen Ranveer Singh inay kala soo muuqato shaashadda Deepika Padukone ayaa keentay dhabaan filimka Fighter ee isla wadan actarka caanka ah Hrithik Roshan haddii ay tahay markaad ku waraysan soo booqato fadlan furo calaamadda gambaleelka laagta iyo sheerka videogan sii sheergara oo la wadaaga asxaabtaada si uu u gaaro meel saro dhanka Bollywoodka maanta maxaa cusub arrimaha Bollywoodka anigoo kusoo qaadanayno arrimaha Bollywoodka ayaa maanta waxaan soo qaadanaynaa 2 July Ranveer Singh iyo Deepika Padukone lamaanayaashan Deepika Padukone ayaa laga dareemayay filimkii Fighter kadib isbedel ayadoo inta badan iska ilaalinaysay Ranveer Singh xilliyada ay aadayaan xafladaha waxay iska ilaalinaysay Ranveer Singh inay kala soo muuqato shaashadaha ayadoo Ranveer Singh iska ilaalinaysay sidaa awgeed waxaa la ogaa Ranveer Singh iyo Deepika Padukone in Deepika Padukone iyo Ranveer Singh lamaanayaashan buuqooda waayahan oo batay filimka Fighter kadib Deepika Padukone ayaa hadda waxaa lagu soo waramayaa in ay leedahay uur 3 bilood ah Deepika Padukone ayaa sheegtay in ay leedahay uur 3 bilood ah sidaa darteed waxay go'aan ku gaartay inay ka soo muuqato muuqaalada qaarkood si ay uga soo muuqan jirto muuqaalada qaar waxayna sheegtay Deepika Padukone in ay aad u xiiseynayso maadaama ay noqonayaan waalidiin Deepika Padukone iyo Ranveer Singh waxay aad uga farxeen cunugooda yar maadaama ay noqonayaan waalidiin Ranveer Singh iyo Deepika Padukone ayaa waxay go'aan ku gaareen inay dhexdooda ka saaraan labadan lamaane caqabada u dhaxaysa labadooda lamaanayaashan ayaa aad iskugu faraxsanay ayagoo in badan isla joogay lamaanayaashan inta badan buuqooda waa yaray laakiin filimka Fighter kadib buuqooda ayaa batay waxaana la dareemayay in labadooda ay isku xanaaqsan yihiin marar badan ay diideen Deepika Padukone inay kala soo muuqato Ranveer Singh muuqaal oo ku jiro lamaanayaashan ayaa aad ugu farxay marka ay maqleen Deepika Padukone inay leedahay uur taageerayaasha ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in lamaanayaashan ay noqdaan waalidiin waxayna leeyihiin aad ayaan u soo dhaweynaynaa maadaama ay noqonayaan Ranveer Singh iyo Deepika Padukone waalidiin Deepika Padukone iyo Ranveer Singh ayaa waxay isguursadeen sanadkii 2018 ayagoo lamaanayaashan in muddo ah wada dhaqmay lamaanayaashan ayaa inta badan waxay ku qanacsanaayeen noloshooda ayagoo inta badan farxad siinayay noloshooda lamaanayaashan ayaa waxaa yaraayay buuqooda ayaan kusoo gabagabaynaa arrimahan kaga hadlaynay Bollywoodka iyo maanta maxaa cusub Bollywoodka ha ilaawo muuqaalkan inaad sheergeliso aad la wadaagto asxaabtaada